TV-ga caalamiga Star TV ayaa ku galay xaaladda aabba ku nool magaalada Burco maalintii shalay ahaa 3 caruurtiisa kamid ah u geeriyoodeen xanuunka shuban biyoodka halka aabihii cisbitaalka weyn ee magaalada Burco u yaalo aabahani oo waraysi gaar ah la yeelanaya xanuunka shuban biyoodka u daliishaday nadaafad darro kaga timi xeradhiigta magaalada Burco uu la diris yahay sidoo kale waxa uu eedeymo kulul u soo jeediyay golaha deegaanka ee Burco oo uu horkacayo maayirka magaalada Burco maayir Maxamed Muraad waxaana hadaladiisii kamid ahaa sida tan aan ku dhawahay walaalo marka ugu horeysa ilaahay baa mahadle labaadka idinkan idin mahad celinaya gurigayga igu soo booqday igu yimid markii aad dhaawacayga aragteen marka ugu horeysa ubadkan ilaahay baa markii horeysay iminkana isaga baqaatay saddex ayaala baa iga dhintay walaalo saddexina baa iga dhintay wuxuu jiray 2 bilood iyo 10 habeen midna wuxuu jiray 4 sanadood midna 7 sanadood buu jiray miijaa cid kale famigaayo hadda cisbitaalka u taala xanuunka aabahay baa yaalay imka aabahay baa u yaala animka da kamid sagina aad buu leedahay waxaan marka ugu horeysa aan halkan ka sheegayaa golaha deegaanka marka ugu horeysa iyaga hawshoodii gabay ina Muraad waa madaxa ugu sareeya meel kale la taabta ma jirto waanu nimid abaara jiray halkaas baqti lagu qalayay xiriirta inta noo jirto waaragtan waxaan ku nir wax ka qabo aniga iyo laba caaqil qiyaamaha wala soo qalada wuxuu lagu yiri waxba ka qaban maayo aniga iyo laba caaqil waxba ka qaban maayo buu waayahay halkaas aan taayir ku sudnay xaafadan soo saaray xogayo aniga u xiray hadadka isku soo keenaysa buu uga hadlaysa xaaladada wixii jira tan baan arkay iyo mid ka daran ma hada idinku isleediin caruurini Ameerika geysin ilaahi aniga ii keenay u jira waanu joogaa taayinta san kaga baxaya labaadka waxaan u mahad celinayaa nimanka gurmad walaalo oo markiiba xaaladdeeda markay arkeen soo gurmaday si wacan ila shaqeeyay walaalana ila shaqeynaya idinkiina saxaafadina waa mahadsantiin bulshada Burco waxaan ugu baaqayaa golaha deegaanka imku halka ayaa le dhul baan safaynay wax baan safaynay golaha deegaanka horaa wuxuu ka qaban lahayd markaan idin nimid wixii jiray intaanay wax walba imanin ayaa xanuunna waa laga hortagay laga daba tagaday golaha bulshadana waxaan ugu baaqayaa qof walba wada aragtaa xaaladda ilaahay baan deeyn awlsan aan ka dalbaya wixii bukana ilaahay inuu shaafiyo ummadda islaam yaasir cabdullaahi kaain telefishinka caalamiga Star TV magaalada Burco